bismillaahi araxmaani araxiim ku soo dhowaada wararka janalka Baris Media. qodobada aynu kugu soo gudbinayna janalka Baris Media waxaa ka mid ah sideebay ku ogaadeen ciidamada Mareykanka weerarka sawaariikhda Iiraaniyiinta, Israa'iil oo markii ugu horeysay daaha ka qaaday sawaariikh laysar ah, dowladda Tunisia ayaa iska diiday codsi kaga yimid dalka Turkiga oo ku aadan in ay isticmaasho dhulka dalka dowladda Tunisia si ay faragelin ciidan ugu samayso dalka Liibiya. ku soo dhowaada faaqidaada qodobadii wararka. sideebay ku ogaadeen ciidamada Mareykanka weerarka sawaariikhda Iiraaniyiinta? dowladda dalka Mareykanka ayaa shaacisay in ay ka hortageen sawaariikh lala beegsaday xarumo ay ku lahaayeen dalka Ciraaq, kuwaasi oo uu sirdoonka Mareykanku u shaaciyay inta aan lagu soo ganin ka hor ciidamada Mareykanka ee ku sugnaa dalka Ciraaq. sargaal u hadlay ciidamada dalka Mareykanka ayaa sidaan yiri: sirdoonkanaga ayaa inoo soo gudbiyay in ay inagu soo wajahan yihiin gantaalo, kuwaasi oo waqtigiiba inagu soo bilowday. isla markiina waxa aan galnay heegan buuxo. waxa ay inagu soo rideen 15 sawaariikh. waxaan qarxinay 11 ka mid ah sawaariikhdii ay inagu soo gameen, halka 4 ka midana ay ku soo dhaceen xirooyinka. waxa ayna sawaariikhda ka soo rideen deegaanka Al-Anbar, ayuu yiri sargaal u hadlay wakaaladda wararka ee CNN. dhanka kale, Israa'iil oo markii ugu horeysay daaha ka qaaday sawaariikh laysar ah. Israa'iil ayaa markii ugu horeysay daaha ka qaaday sawaariikh laysar ah, taasi oo ay soo bandhigtay iyadoo sheegtay in ay kaga hortagi doonaan weerarada ay ku soo qaadaan ururka Xamaas. Israa'iil ayaa ku sifaysay in ay tahay markii ugu horeysay ee ay Israa'iil tiknoolajiyada sawaariikhdaasi soo bandhigto taariikhda. dowladda Tunisia ayaa si cad u diiday codsi kaga yimid dowladda dalka Turkiga, kaasi oo ku aadan in loo ogolaado isticmaalka dhulka Tunisia si dowladda Turkigu ay faragelin ciidan ugu samayso dalka Liibiya. dalka Liibiya ayaa waxaa ka socda dagaalo u dhaxeeya ciidamada UN-ka iyo kuwa dowladda Liibiya oo isku dhinaca, oo fadhigoodu yahay caasimadda dalka Tripoli, iyo ciidamada ka soo horjeedo ee Generaal Khalifa Haftar. dowladda Tunisia ayaa gebi ahaanba diidan in lagu sameeyo faragelin ciidan. madaxweynaha dalka Tunisia Qaasi Sayid ayaa ka sheegay kulan dhex maray asaga iyo madaxweynaha dalka Turkiga Rajab Tayyip Erdogan in uusan aqbali karin in dalkiisa ay ciidamada Turkigu isticmaalaan faragelin ku sameeyaan dalka Liibiya. barnaamijkii Baris Media ee aad kala socoteen janalka Baris inta ayaynu ku soo gabagabeeynaa. si aad ula socoto warbixinada iyo wararka ku aadan caalamka, fadlan subscribe saar, gambaleelkana taabo. mahadsanid.